baryahan dambe waxaa soo kordhaya hadlaynta carruurta la xado kuwaasoo meelo kale loo iibgeeyo halkani waa magaalada Laascaanood xarunta gobolkaasi Sool waxaana haatan maxkamadda magaalada ka socota dacwad la xidhiidha carruur la xaday Safiya Maxamed Axmed waa haweeneyda eedayntu ku socoto kadib markii lagu soo qabtay ilmo yar oo qoyskii laga xaday raacda ku soo heleen haweeneydu waxay maxkamadda horteeda ka qiratay in ay dambigan gashay Kaamil Yuusuf ayaa seexan 30 maalmood oo ilmaheedu ka maqnaa waana hooyada dhashay ilmahan mudada bisha ay ilmuhu ka maqnaa adiga markii aad ilmaha weydeen maxaad markiiba niyadda gelisay markaad ilmaha ayaa daba ku heshay dariiqan ilmaha iyo waa ku soo gaar oo ku soo array la leeyahay kan waa gormiya diga fiya dashay waa ku weerarto waalidiinta ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin soo korodhka xaaladan iyo inay ka maqan yihiin carruur tira badani halka kuwa kalena laga reebay iyadoo la xadayo waalidka ilmaha dhalay ayaa si aad uga carooday kadib markii ay arkeen ilmahoodii oo lagu dhigay sumad kuwa xoolaha oo kala ah taasoo u muuqaaleeg astaanta isku tallaabta diinta masiixiga arrintaasi oo sii kicisay dareenka dad badan sheekada ka hormeena karay iminka hadda qolada maxkamadda horteeda gabadha waxay ka cadeynaysaa in ilmaha loogu talagalay gabadha maray hadda hadlaysay waxay cadeysay in loogu talagalay in la iibgeeyo ilmaha kulli waa saylad furan oo caalamka ka furan taana dawlad kiiskeedii ma soo cadaan oo booliska wali gacanta ku haya insha Allah xogtooda sida dhabta u soo baxay ayaan wax ka sheegi karayna wariye Cabdiqani Xasan Gadari oo ku sugan magaalada Laascaanood ayaan weydiinay sida ay wax uga jiraan arrimahan waxay gabadha yar ka soo xaday magaalada Gaalkacyo kadibna waxay la timi magaalada Laascaanood waxaana ay ku wareejisay hooyadeed kadibna waxay safar u gashay tuulo u dhow daafaha magaalada Laascaanood oo la yiraahdo Eegaag howlgal ballaaran way sameeyeen booliisku way ku raadgoobayeen sidii gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kiiska lagu soo eedeeyay haweeneyda ayaa lagu soo qabtay hooyadeed kadib ciidanka booliiska ayaa waxay direen 6 nin waxaana ay ka soo qabteen wixii dumarka ah oo u baxsatay markaa Eegaag dad kala duwan ayaa rajaynaya inay helaan ubadkoodii oo muddo dheer ay leeyihiin meel ay taan iyo cirib dhigeen kuwaasi ay u maleynayeen inay lumeen hase yeeshee ay iminka aaminsan yihiin in la xaday oo ay nool yihiin isla markaana ay codsanayaan in laga caawiyo baadidoonka ubadkooda raadna aan haynin hadda sanqadar markii aan maqlay baa raadadka iyo wax kale soo baxeen anigu waxaan ahaa raggii dibadaha ku maqnaa carabaha iyo dhulka ku maqnaa laakiin dadkii joogay oo baaris weyn u geystay baan ka helay wararka hadeer markii sanqadahani ay baxeen reerkana aanu derisnahay oo aanu isku dhownahay sidaa darteedana aniguna hadeer ku hawlgalay hawshana doonaya in wax looga qabto kudhaawin wahay markay iga luntay waxay laba jir 2 bilood baa uga dhigna 22 bilood bay jirtay reerka waxaan deriska ahay jid baan deriska ahay inay ribadiyaan ribadiyada waa gabadha lafteeda waa gabadhan reerkoodu gabadhoo 6 sanadood bay ka maqantay bishii aanu maqonin halkan markii aan inuu warfaafintan geliyay oo raadiyana waa geliyay oo deena waa geliyay waaga taariikhda way wata waaga usaad meelan ka tixraaca ma hayo waaga ana raad ma hayo ma qoran laakiin gabadhu markaana 2 sanadood 2 bilood baa uga dhigna jecelahay wixii hadda day dadku islaayihiin la haday heleen noo soo faafiya ama ilmaha noo sheegan meel kusugno Xuseen Cabdilaahi Deeqsi Ra TV Hargeysa